أولاً هرتا وحما هذا سكال الله سبحانه وتعالى ونصور تجليد جودهان تنا هل كان سجون ماضو وحان مركلبات هاد علينا يا جودهان maamulka gobolka Banaadir halkaan la jooga oo asigana waqtigiisa runtii halkaan ku soo bixiyay bacdalantaasna waxaan u mahad celinayaa saraakiisha guutada oo ugu horeeyo taliyaha guutada suurta geliya runtii in muxuu ahaa ii sheegay taliskan guutadu ay ku shaqeyn laheeday ay halkaan ka hirgeliyaan runtii shaqo kasta la qabanayo waxay u baahan tahay inaad shaqo qabato horta waxa ka horeeya waxaad ku qaban lahayd inaad diyaariso hadii aanay diyaarba ku ahayn haday noqon laheeda dadkii haday noqon laheeda qalabkii iyo haday noqon laheeda meeshii la dhigi lahaa qalabka oo lagu shaqeyn lahaa hadaanay jirin shaqadu socon ma karto waxay u baahan tahay marka shaqada in la helo horta dadkii shaqeyn lahaa waxay u baahan tahay in la helo meeshii lagu shaqeyn lahaa waxay u baahan tahay in la helo agabkii lagu shaqeyn lahaa dhamaan waxa soo dhan wax isku xiran oo say kala oo isku xiran way marka waxaan rabaa runtii aad iyo aad inaan ugu hambaliyeeyo taliska guutada in ay hirgeliyaan xafiisyadii ay ku shaqeyn lahaayeen guutada in ay halkan ka hirgeliyaan guud ahaantood saraakiisha hore saraakiil xigeenkooda ay alif leeyahay dableydooda cid kasto ka qayb qaadatay waxaan rabaa sidaas oo kale asigana maamulka gobolka Banaadir oo runtii gudoomiye ku xigeenka iyo gudoomiyaasha degmooyinka ay nagala joogaan inaan ayagan uga mahad celiyo runtii kaalinta ay ku lahaayeen degmooyinku in taliskan guutada uu hirgalay qaybta ay ku lahaayeen waxa kale rabaa idan inuu mahad cid walba gacan ka geysatay oo ka qayb qaadatay dabcan cid kasto gacan ka geysatay dhismaha taliskan guutada gacan kama aanay geysan waxay qof shakhsiya u qabatay waxay gacan ka geysatay wixii ummadeer loo adeegi lahaa oo waxaan isleeyahay hawl qaran ayay gacan ka geysataan isleeyahay aad iyo aad ugu mahadsantahay qof walba gacan ka geysata runtii markaan inta ka imaado dabcan military police labada guuto abniga gobolka Banaadir kala shaqeeyay hay'adaha ku shaqada leh abniga gudaha iyo magaaladan caasimadda abnigeeda ku shaqada leh iyo maamulka gobolka Banaadir abniga kala shaqeeyay runtii halkaan waxaan ugu soo bandhigay video laakiin waxaan isleeyahay waa inta ay maalin qabtaan ayay la ekeeda inta halkaan lagu soo bandhigay laakiin guud ahaan runtii howlaha ay qabteen oo caasimadan ay ka qabteen waxaan isleeyahay qaranka Soomaaliyeedna dabcan xusiis gaar ayay ku yeela doontaa dadka Soomaaliyeedna runtii waxde waajib nagu aha ayaan u qabanaa ka ciidan ahaan ka xoog dal Soomaaliyeed ahaan iyo ka dawlad ahaanba wax waajib ah ayaa la qabtay ayagana runtii dareenkooda iyo shucuubta ka muuqatay waa arkaysaan hadda dadka halkan ka hadlay aad iyo aad ayay runtii ayaguna u mahadsan yihiin inta ayaaba naga badanba in qofka muwaadinka oo Soomaaliyeed annaga shalay waxaan u istaagnay oo u taagnaynay oo dhiigeena u bixinaynay oo nafteena u bixinaynay oo aan waqtigeena iyo dhan aan siinay oo adeegida ummadeen annaga marka waa wax naga go'nayba waa waxaan uga fogaanayba inaan meel qabow ku jirno howdka u galnay ku dhimanayno laakiin qofka aad runtii waqtigaaga u bixinaysay ee aad naftaada u bixinaysay inuu ku dareensiyo inuu ku egyahay oo ku ogyahay shaqada aad u hayso taas ayaa waxay sameynaysaa runtii macna kale sameynaysa marka aad iyo aad ay dadku u mahadsan yihiin waxaan isleeyahay marka military police dabcan sugidda amniga caasimadda iyo la dagaalanka argagixisada caasimadda iyo hareeraheeda qayb weyn ay ka qaateen waxaan rajaynayaa insha Allah taala inaan halka ka sii wadi doono ilaa aan gaari doono meel kale fog waxa taa barbar socda oo runtii hadda laga hadlayo daraagiska iyo ciyaal weer iyo waxyaabaha la midka horta ciyaal weeruhu cirka kama soo dhicin sabab ayaa keentay sababta keenaysa marka asalka waxa u ah daroogadu marka waa nooc kamida waxyaabaha lagu baabi'inayo jiritaanka dadka Soomaaliyeed akhlaaqiyadkoodii iimaankoodii anshaxoodii wax kasta oo dadka bini aadanka wax u geysan kara waxa u fududeynayo waa daroogada marka runtii waxaan isleeyahay taasna ayadana sida gacanta argagixisada lagu la dirirayo gacan lamida in lagu la dagaalamay u baahan tahay ayadana dadka waxa noocaas ku kacayaan in talaabo laga qaado